بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada xalqadii labaad ee kooraskii aan ugu magac darnay sidee baan ku noqdaa qof aqoon-yahan ah. Xalqadii hore waxaan ku soo tilmaanay waxay ku kala duwan yihiin filosoofka iyo mufakkirka. Waxaan halka rabaa inaan raaciyo qof kastoo filosoofa waa mufakkir, laakiin qof kastoo mufakkara ma aha filosoof. Filosoofku halka uu arrimaha guud ee kawniga ee jiritaanka iyo arrimaha guud ee balaaran uu ka fekero wax iska weydiyo, mufakkirku waa qof uga dhow bi'ada iyo bulshada oo waxay dadka shacabka caadiga ah ay la nool yihiin wax ka yiraahda. Markay noqoto mufakkirku aad buu uga dhow yahay xagga bulshada iyo waaqaca marka loo eego filosoofka. Haddaba muxuu kaga duwan yahay mufakkirka iyo filosoofku? Muxuu kaga duwan yahay caalimku? Caalimku waa qof buuni ah. Soomaaligu wuxuu ku noqonayaa buuni. Waa qof aqoontiisu gaadhay xad loo daba fadhiisto waxa uu aqoonta u leeyahay. Waa marjic loogu laabto marka arrimaha adag ay taagan tahay. Waa qof 20 sano, 30 sano, 40 sano laga yaabo inuu majaal kaliya ama takhasus kaliya wax ku bixiyay, juhdi fara badan ku bixiyay. Caalimku kaliya ma aha ka shareecada. Dabcan waxaa jira caalim shareeca ah baa jira, aqoon u leh, buuni ku ah fiqiga, usuul fiqiga, quraanka, culum alxadiis iyo wixii la midka culum luqa. Sidoo kale waxaa jira caalim fiisiyaaiya baa jira. Waxaa sidoo kale jira caalim kiimiyaaiya. Waxaa jira caalim xisaabaadka ku takhasusay. Waxaa jira caalim cilmi nafsiga ku takhasusay oo labadaba fadhiisto oo marjic u ah. وهكذا علومta kala duwan, cilmi walba dad waxay leedahay jira loo daba fadhiisto oo fara ku tirisa oo marjic u ah. Muxuu kaga duwan yahay qofka daaciga ah? Caalimku muxuu kaga duwan yahay? Daacigu waxa laga yaabaa inaanu takhasus lahayn, wayna dhici karaysaa inuu takhasus leeyahay, laakiin waa qof leh afkaar iyo macluumaad sharciya oo uu doonayo bulshada inuu wax kaga bedelo, aqoon ku baro. Wuxuu inta badan isku dayaa inuu muxaadaraad jeediyo, dowraad bixiyo. Wuxuu isku dayaa inuu aad uga hadlo marar badan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dadka inuu samaha faro, xumahana uu ka reebo. Daacigu ma aha qof afkaar abuura, ma aha qof fikradaha sameeya sida mufakkirka iyo filosoofka oo kale, laakiin waa qof afkaar xambaarsan sharciya, doonayana inuu bulshada wax kaga bedelo uu ku badbaadiyo. Muslixu waa qof noocee? Qofka muslixa ah waa qof laga yaabo inuu takhasus leeyahay, sidoo kale waxaa laga yaabaa inaanu takhasus lahayn, laakiin waa qof leh afkaar iyo hammi uu xambaarsan yahay oo uu ordayo oo uu raacdaynayo, uu doonayo bulshada inuu wax kaga bedelo. Waxaa laga yaabaa inuu mu'asasaad sameeyo oo abuuro ilaa uu waxa uu doonayo inuu maslaxada uu doonayo inuu sameeyo ama waxa uu doonayo bulshada inuu ka hagaajiyo. Waxaa laga yaabaa inuu mu'asasa asaaso, waxaa laga yaabaa inuu mashaariic abuuro, laakiin waa qof muslixa oo doonaya wax inuu hagaajiyo. Ma aha isaguna sidoo kale sida daaciga qof afkaar sameeya ama afkaar abuura ma aha, laakiin waa qof hammi xambaarsan doonaya. Waxaa laga yaabaa inuu caafimaadka iyo isbitaalada inuu doonayo inuu wax ka geysto. Waxaa laga yaabaa inuu akhlaaqiyadka bulshada rabo inuu ka saxo. Waxaa laga yaabaa in arrimo fara badan oo markaa islaaxiya uu doonayo bulshada inuu ka hagaajiyo ayuu ku hawlan yahay. Qofka haddaba aynu u baahannahay inaynu kusoo gabagabayno xalqada waxa weeye qofka muthaqafka ah. Muthaqafku waa kuma? Muthaqafku muxuu kaga duwan yahay mufakkirka? Muxuu kaga duwan yahay filosoofka? Muxuu kaga duwan yahay daaciga iyo caalimka iyo muslixa? Muxuu kaga duwan yahay? Qofka muthaqafka ah waa qof aqoon leh, takhasus leh. aad baa arrintaa muhiim u tahay inuu takhasus leeyahay, walow bachelor ha ka haysta hadduu doonayo, laakiin waa qof aqoontiisii ballaadhiyey. 3 calaamadood baa lagu gartaa qofka aqoon-yahanka. 3 calaamadood lagu garto waxa weeye intaan calaamaadka kale xalqooyinka dambe aan ugu gudbi doonaa inaan gaarin, laakiin 3 arrimood oo u qaasa ayaa jira. Wuxuu leeyahay kow, arrinta ugu horeysa
kayd aqoomeed buu leeyahay, kayd macrifi uu leeyahay. waa qof ka ballaadhay oo ka gudbay xayndaabka takhasuskiisa. dabcan takhasus buu leeyahay, takhasuskiisa culum badan baa ku xidhiidha, culumta waxbuu ka yaqaanaa, bale wuu kasii gudbay oo wax badan ayuu qof wax akhriye weeyaan. xalaqaadka dambe aynu ugu tegi doonaa sidee wax u akhriyaa, wadooyinkee u maraa, maxaan akhriyaa iyo wixii kale la halmaalay. marka waa qof kayd macrifiya leh, kayd aqoomeed leh, wax badan wax ka akhriyay taariikhda, siyaasadda, fikirka, culumta ijtimaaca, culumta nafsiga, culumta shareecada, garanaya thaqaafadda iyo cultureka iyo suugaanta, adabka bulshada uu la nool yahay wax ka yaqaana, kuwa caalamka kalena wax ka yaqaana. ugu yaraan waa inuu 2 xadaaradood 3 xadaaradood qofka muthaqafka uu aqoontiisu ay gaarsan tahay. waxaa la yidhaahdaa qofka aqoon-yahanka ama qofka muthaqafka waa qof cilmi keliya ka yaqaana wax walba, laakiin cilmi kasta ka yaqaana wax. ugu yaraan cilmi walba wuxuu ka akhriyay buug si uu wax uga fahmo. thaqaafaadka kala duwan ee dunida taalana mid waliba wuxuu ka akhriyay buug ama laba ka akhriyay. arinta labaad uu leeyahay waxa weeye wuxuu leeyahay maskax wax hufta oo kala hadisa oo kritigaran karaysa ama naqdin karaysa waxa uu akhrinayo, waaqaca uu ku nool yahay iyo waxa ku hareeraysan. oo qof marka aan wax iska akhrin, qof kastoo wax akhriya, qof kastoo muthaqafa waxbuu akhriyaa, laakiin qof kastoo wax akhriya muthaqaf maaha. waa inuu leeyahay arinta labaad ee ah xis naqdi ah oo uu wax ku naqdiyo, oo wax ku kala hufo, oo wax ku kala haadiyo. arinta saddexaad uu leeyahay waxa weeye waa qof majaal iyo door muuqda bulshada ku dhex leh. doorka wuxuu noqon karaa door siyaasi ah, wuxuu noqon karaa door allah musta'aan fikriya, wuxuu noqon karaa door waxbarasho oo systemka waxbarasho qof wax ku soo kordhiya, wuxuu noqon karaa qof hiddi iyo dhaqankii ummadan lahayd kala hufa, ila hideena wax badan oo khaldan baa ku jira, kala hufa. على أي حال وقف له دور وكم مقضى أو سامين كله يهاي سمدنا كله يهاي لقونا يقانو بشدن وحلا يدب بدنا أقويانا ذا وحكم ذا ولو تذكرين بدنا وكم ذا يكون يقانا سياسة ذا، لكن ذا أقويانا وحكم ذا أقويان كدكتور صادقينو وحكم ذا تذكر أقويان ولبا مجال كاس وهذا أبطي سياسي oo runtii aad baahiyaan ugu qabno aqoon-yahano badan ay soo baxaan isaga la mid ah aan u baahanahay inay jiraan, laakiin ay door muuqda bulshada ku yeeshaan. waxaa ka mid ah Axmed Ibraahim Cawaale, waxaa ka mid ah dadka muthaqafiinta ah Professor Cabdalla Mansuur, waxaa ka mid ah Sheekh Mustafa. rag fara badan baa jira oo muthaqafiina oo bulshada ay leedahay. aadna muhiim u tahay qofka muthaqafka doonaya inuu noqdo inuu dad noocaas oo kale ku daydo, kutubtooda iyo muxaadaraadkooda iyo barnaamijyadooda uu dhageysto, akhriyo buugtooda, iyagana uu mithaal ka dhigto iyo tusaale nool uu ku daydo. xalqada soo socota insha Allah waxaan kaga sheekeyn doonaa calaamadaha u gaarka qofka aqoon-yahanka haddii Ilaahay yiraahdo. intaan xalqada dambe ku kulmi doono aad baan idin salaamayaa.